بسم الله الرحمن الرحيم. marka ugu horeyso waxaan ku salaamayaa salaanta muslimkan ku salaamayaa maxamed cabdullaahi farmaajo hada tahay madaxweynaheena qaaliga ahaayo waxaan ahay cumar hooyadiis oo dhashay cumar shariif jeeg oo gudoomiyaha degmada xamarweyne ahaa hooyo waxa weeye cumar shariif mishina loo dhigay mishinkana waxaa u dhigay ninka xisaabiyaha ka ah dawladda hoose ninkaas oo inta ka hor yiri lacagti bulaacada hala siiya masaakiinta markii la dhahay ma la siinayo dhahay ana sheeraan ka rabaa dadkii weli lacagti lama siinin waxaa dhacday ninkii marka magaaladan horta marka ugu horeyso hooyo waxaan ku weydiinaa federal miya mise waa magaalo aan dawlad lahayn oo federal ahayn oo wax ay tahay aan la aqoonin miya hooyo su'aashaasaan ku weydiinaa adoo raalli iga ah teeda labaad maama dawladda markay federal tahay waad aragtay CNN-ka Trump waa la caynoyaa habeen kasta aniga waa fiirsadaa okay sidee ku dhici kartaa nin xaqa ka hadlay ee waddankeennii aan wanaagsanno yiri corruptionka hala daayo ee dhul xoog ah awood loo sheegtay inta dadkii kale oo aan waxba camera iyo waxba laga duubin oo aan la geynin maxaa qoladan warbaahinta oo isaga markuu galay oo hadalkiisa uu qaadanayay tookadiisa ahayd ayaa waxa la hoos dhigay telefoonkii wuxuu ku hadlay waxay ahayd waddankeena aan dhisno corruptionka aan iska dayno booliiska ma shaqeeyaan hooyo aniga ilaahay uga furanaya cimriga aan ku jirana waa cimri aan yareyn cumar wiilka weynaan dhalay alla wuxuu igu ogyahay oo rasuulku igu ogyahay in aan aniga checkpointiga aniga aan deganahay mootada lacagta laga qaado ani markaan alaab watana la ii diiday alaabta inaan mariyo ilaa aan lacag bixiyo saldhigga laba qofood haday isdiriraan oo la xiro labada qofood midka lacagta haysto waa laga qaadaa kan kalena wuu iska xirnaanayaa hadda saldhigga wuxuu ku fiicnaaday Siciid markii la keenay looma fiirsanin booliiska yani sidaan u naqaan annaga anshaxa booliiska ma yaqaanaan waa dad mooryaan ah waa dad ilaahay aan aqoonin waa dad ilaahay aan iyo rasuulka aan aqoonin waay waxa ku soo haray ninkan oo xiray wuxuu u dhiibay nin la yiraahdo muxuu ahayd magaciisa oo CID da joogo oo ilma adeer ay yihiin ayuu u dhiibay oo xir dhahay hooyo dawladda horaan u shaqayn jiray xoghaynta wasiirkan ahaa oo aadan maxamed cali waxaan naqaanaa xabsi guri ninka hadduu madax yahay maaha in la geeyo saldhig lama oranin gurigaagaad xabsi ku tahay haddii uu dambi galay in case laakiinse meeshaan waxay igula muuqataa qabyaalad cad oo aan geed la isugu soo gaban gudoomiyaashii kale markay wada hadleen isaga waxa kaamirada loogu dhigay muxuu ahayto mobilka waxa weeye mission loogu talagalay cumar shariif waaye marka mission kasta oo loogu talagalo ilaahay wax aniga ilaahay u baryooyo oo waalidkiisa oo 9 bilood isu gooda soo waday aabihiisa joogo cunugan dal askareed waayo awowgiis ila taqaana umaleena Ibrahim Kaaba liidada kabtanka markabka boolimoogu ahaa engineerna waa ahaa gurigaas ku soo koray cunugaas ma yaqaano laab ma yaqaano corruption ummadda nabi maxamed isugu mid waaye kii ooyu la ooynaya ma aha marka in ciriiri inta la geliyo oo muxuu qabyaalad loo adeegsado oo ilaa warqadan saxiix ilaa lacagtii bulaacadaha oo lagu qoday waa in aan nuskayga ka qaataa taa waxaanu arkaa inayna federal jirin oo uu jiro afduub adoo raalli iga ah waxa hadalkan kuleelka iga keenayana waxa weeyaan afduubka lagu sameeyay cumar shariif jeeg oo wiilkayga ah ma dhikaran qabaa maanta 3 ah maanan seexan habeen ma seexdo maalin ma seexdo saasa ilinta iga daysa waana xaran
وانا وحن شرعي الاسلامك عن اوغولين ووحن فدرالك اوغولين قف متعلمضانا ميهي البادية ما كإيمان عليك باديو هذيك أنا كمان إمام محمد عبد الله نبي مجيء عيسى الله تا محمد نبي أبيس مجيء عيسى الله تا محمد محمد أدونك وحاور واسم لها بلايا كاتب عليك ليس الله كاقبته ومد الإسلام كان الله كوالقبته وحن كل شيء يا هو يكستو إلى يساوي يستهبين يا مالك magaalada dhexdeeda waxa lagu sameeyay sidaasina ooys qaasaan booliska haddaad 3 saxaabeenimo soo martay checkpointiga waa iska fureen inta quraan oo aan aqrisanayna ku moodayna ma hana anaga ilaahana wata mooyee wehel kala ma haysano marka sidaasan maxamed hooyo ku sheegaya waxaan jeclahay inaad wiilkayga sida ugu dhaqsiyaa badan adoo raali iga ah aad igu soo sii daysid hooyo وأنا كسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.